بسم الله الرحمن الرحيم. horta waajibaadka ciidanka ilaalada xeebahu waa inuu badaha ilaaliyo wixii gudaha ka baxaya iyo wixii dibadda ka soo galaya labadaba waajib baa naga saaran waxa si jirtay hawlaha waana la leeyahay wixii maxaan ku leeyahay kontrabaan ee gudaha kale sida taasimiga aad sheegaysaan oo kale waana la leeyahay waxaan la bariga hay'ado bariga baa nala wasaaradda nala waxaan la ciidamada kale amniga oo dhan baa nala ciidanka qaranka nala waxa sidee waxa laga yaabaa badu intaas leeg baaxada leh meel walba ma taagin waa laga yaabaa harimacad yaro laga keenay maxaan ku yiraahdaa bariga soo maray waa laga yaabaa maalinta in meel aanan joogin wala meel walbana in gaari nooma joogo meel walbana dooni nooma taagna markii horena waanu ciidanka iyagu waanu yara qalabka iyaguna wuu yara maanta laakiin ciidamaduna way noo kordheen qalabkuna wuu noo kordhay qalab fara badan oo kii bariga iyo kii badaba loo wali hawl gelin ba cusub baa noo yaala marka hawsheeda waanu ka adagna laakiin hadii ay sibqa jireen hore ay wax nooga sibqeen de waxaan wada leenahay hay'adaha wasaaradda deegaanka kamida waa in laga soo shaqeeyaa kontrabaanka soo baxaya ma ha ahaado xayawaan ha ahaado ama ha ahaado kontrabaan kale bariga hadii aan laga soo shaqeeyno badda weyn lagu soo daayo de kuma filan karno oo badda oo dhan waxa loo baahan yahay in barigii laga soo shaqeeyo wixii soo weydaarta badda noogu yimaadaan anagu aanu heegano ahaano waxaan filayaa maanta oo sanadkan qalabka noo yaalay ciidanka sidii noogu kordhay oo waliba filayno in dhawaana noo kordhayo inaanu ka adagna hawsheeda midna waa marxaati de badda hawsha baddu way fara badan tahay waxa kamid ah oo ugu khatarsanaa cadawgan ay raahdo maxaan ku raahdaa maanta jira aynu jaarka nahay inaga soo bitaaca halkaasi wali hal case oo hirgalay oo u fulay ma jiro oo dhibaato inoo geystay markaba la inaga afduubay ma jiro biyaheena waxa laga ka haystay ma jiraan way maciishadeena iyo nolosheena maanta sidan may ahaateen wayna dekadaasaynu kulana dekadu way inaga xidhminahay waxa weeyaan waxa hawshaasi qabtay laynooma iman macnaheedu maaha waa leeno yimi xabsiyada waxa ku jira ilaa 200 oo maxaan ku boqol iyo saaid budcad badeeda ciidamada qabtay waa leeno soo duulay waa leeno maxaan ku waa la isku keenday waxaase ciidanka ayaa hawshiisi gutay ilaahayna ku gargaaray dawladuna maxaan ku raahday waajibaadkeedii ka qabsatay ciidankuna waajibkiisa gutay taasi waa guul waa dad waxa ka marxaatiya ummadda ka marxaatiya caalamka oo dhan baa ka marxaatiya riboodada sidaas ku soo baxa miyaa maqasheen wali idinku miyaa qorteen marka hebel baa laga afduubay Somaliland ku soo socday meel heblaaya bidayna laga afduubay iyo meel inoo dhowtoona laga may dhicin taasi waxay marxaati ka tahay inuu ciidanku waajibkiisa guto waxaase yimi arrinkan kale waxaan ku rahay macadiyadan sawiranay halkan ku sawiran qaar aanu qabanayna way jiraan oo maxaan ku raahday meelaha ku baqbaqtay qaar dib loo celiyay way jiraan waa dhici kartaa mid iyo laba fakada waa jiri kartaa waxaasay u baahan tahay wadajir iyo iskaashi la iska kaashado hay'adaha ku shaqo leh wasaaradaha iyo ciidamaduba oo ayna maxaan ku raahdaa waxa badda nagu soo gaadhaaba ay yaraadaan taasaanu hadii Allayd ma ku hawlgeli doona oo hay'adahan saanu iska kaashan doona bal inay bariga ayna debel ka soo gudbinba anaguna badaan heegan ku ahaan waqti taliye dhawaan dawladda Soomaaliya waxay heshiis dhinaca hay'ad caalami badda ku wareegsay iskuulka Soomaaliya ku jirta Soomaaliland leeyahay katalsahan sideebad ku dirgay talabada heshiiska Soomaaliland horta waxayna khusayeen madaxweyne ku xigeenkuna uu ka hadlay oo ku sameeyay madaxweynaha imka ah arrinkaas waxayna khusayeen ma diyaarna waxaanu waxa weeyaan laba dawladood baynu kala lahayn waxaynu kala leenahay laba xuduudood baynu kala leenahay bari iyo badba xuduudaheenu waa kala jaad anaguna mas'uul xuduudayadaanu ka nahay oo xuduudda Somaliland baan mas'uul ka nahay iyaguna hadii ay ka hadlayaan bad ka hadlayaan deetoodun bay sheegayaan baan u maleynaa hadii kale doo wareelo oo waxa iska wadaan anaga Somaliland xukunna doo awalba way oran jireen waxa mas'uul ka yihiin sama jirta caalamkuna waa